السلام عليكم ورحمة الله. مركز ومحمد إبراهيم عن سو جيدة. هذا المحرف أيضا تسو how to make a graph in a word. سلو ديارين كرا graph word كأدقو تاجن أما تاجن word وأنا وحبها مهم هذا كديارني تأسها إني برتعن table أي حيستا إنك سمسن كران graph أو تاجن وحلو يقالنا word أنا إسن آدين excel automatic word أمر وكسي إنه فرو excel وهو دياريو. أوكي سيدا عادي waxaan rabaa marka inaan meeshan ku qoro figure halkaas aan keensado table dhamaystiran. First step aan taabana waxay tahay inaan highlight gareeyo frequency-ga numberka iyo variable name-ka labadaas oo kaliya waa inaan highlight gareystaa kadib waa inaan right click after that waa inaan doortaa copy markaan doorto kadib kasarka waa inaan geeyaa figure-ka meeshan ku qortay hoosteeda hoose ilaan sawirkan inta yimaadaan rabaa kadib waxaan doonayaa waxa loo yaqaano insert oo aad taqaanaa markii wax la soo gelinayo la isticmaalo insert aan ku dhufanaa waxaan ku dhuftaa tagay illustration waxaan ka tagay waliba chartiga illustration waa badan yahay wuxuu ka kooban yahay ilaa 5 qaybood laakiin qaybta loo yaqaan chartka aan ku sii markaan ku sii waxa soo baxaya box waxa insert charter lagu magacaabo oo inta taxan yihiin qaybaha chartka ku kooban yahay oo dhan waa taqaanaa fila column-ka line-ka bar chart bar chart area scatter loo yaqaano way ugu muhiimsan ka mid ah scatterka iyo bar chart iyo chart iyo columns-ka hadda waxaan tagaynaa columns-ka waxaan rabnaa inaan doorano bar chart inaan doorano nooca waliba aan doorano bar chart annagoo marka sida caadiga picture-kan inta ku soo bandhigay inta qaybood inta ku qoran inta qaybood meesha ku qoran wuxuu ku soo bandhigaa qaybahooda dhameystiran inta column ku artaan sida ugu horeeya line-ka ee ku xiga biyaha ku xiga isku xigan ayuu kala horeeyaa ayagoo sawirkii dhameystirnaa bara ku xiga area ku xiga xy ku xiga stock ku xiga surface ku xiga tan soo isugu xigeen caadiga ah meeshan isugu xiga anaga waxaan rabnaa inaan qaadano bar chart-iga bar marno waxaan dooranaynaa bar chart 3D waxaan leenahay noocaas 3D loo yaqaano box shape-ka ah aan doorana select markaan dhaano automatic highlight fulaysa kadib waxaan ku dhufanaynaa okay wuxuu ii keenay ay furaya excel automatic open ugu sameeyna marka ii soo furo waxaan geysanayaa koobigi aan watay waa ii soo fur saarata wuxuu ii soo fur excel waa taqaana Microsoft Excel iyo waxaan ugu soo furay okay inta wuxuu ii keenay afar box ani waxaan soo koobiyeystay laba oo kaliya labadii bis aan la gareysana oo meeshii variable-kii waxaan la gareysay meeshii aan u talagalay frequency-ga marka xalad geysto waxaan ku leeyahay basti markaan basti iraado oo koob basti aan ku iraado waxaan iska saarayaa labada qaybood soo hartay waxaan ku sameeynaa del waxaan dhigi karaa right click delete baxaya dhammaan wixii meesha ku jiray automatic waxaan sameeynaa soo celiyo waan ku soo celiyo isbeedka maqan aan soo celiyo selkaas inta ku yaalana xaggaas ka muuqda okay markaan dhameeyo wax kala sameyn maayo waxaan sameeynaa oo kaliya inaan close ku sameeyo waan close gareeyo selka meesha ku qoran tahay qaar waxay ku qortaan wixii muhiimka ah hadda meesha waxay ku qoran kara gender inaan ka dhigto oo gender naftiisa aan ku cadeeyo oo waxaan table-kan u tagay waxaan ka wadaa waa gender sidoo ku qoran waa male and female. Okay this is waxay tahay how to make graph haddii aad u baahato qurxinteeda waxa la dhigi kartaa right marka kaliya ku siiso waxa ku soo baxay design aan nooc muuqan doona dooran kartaa hadda design rabin color aad doorato waxa dooranaysaa format-ka markaad doorato waxaa soo furaysaa shape style-ka waxaad dooranaysaa color-kii aad jeceshahay adiga color-kii aad jeceshahay inuu muuqdo aad ku dhufanaysaa waxaa ku soo baxay nooc aad jeceshahay inuu kugu muuqdo graph-kaaga iyo qurxintiisa oo dhan. Thank you for that. Macallin soo jeeday mahadsanid nasoo wanaagsan.